السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan habeen wanaagsan waa habeenimo khamiisa jimca soo galayso taariikhduna ay tahay 18 September sanadka 2025 qodobada barnaamijkan idinku haya caawa waxa kamid ah dagaalkii ka socday Gaza xaaladiisu halkay maraysaa ciidamada Israa'iil oo caawa ka nixiyay shacabkooda kadib markii ay sheegeen saacadihii la soo dhaafay in Gaza lagu qararamsaday afar kamid ah saraakiisha waaweyn ee ciidanka Israa'iil. haddaba sidee wax u jiraan tafaasiil ku saabsan dagaalkaas iyo xaaladdu sida ay tahay iyo sida qorraxdu ay ku dhacday caawa xaalku siduu yahay wararkii ugu dambeeyaan idin haya. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa Xuutiga oo weerar la yaab leh soo qaaday hotel ku yaala Eilat oo la sheegay diyaarad Xuutigu leeyahay inay gashay oo ay duqaysay xilli la sheegay waliba in halka kulan xasaasiya uu ka socday. haddaba sidee wax u jiraan Xuutiga weerarkiisa iyo khasaaraha iyo sida meesha uu weeraray wixii laga qoray waan idiin soo gudbin doonaa. warar kale oo ku saabsan wixii dhacay saacadihii la soo dhaafayna waan idiin hayaa. inta aan ku jirno barnaamijka wixii warar ee soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa. dagaalka ka soconaya Gaza. haddaba Gaza waxaa la soo sheegayaa in xaaladdu ay sii kululaanayso marba marka ka dambeeya inkastoo ciidamada Israa'iil ay diidan yihiin inay gudaha u soo galaan. haddaba waxaa dhacay weeraro miinooyin loo dhigay baabuurtooda duqeymo lagu sameeyay meelo ay joogeen saacadihii la soo dhaafay. wax waro tafaasiila saacadihii la soo dhaafay oo dhan ciidanka Israa'iil kama soo bixin, laakiin caawa warka ay soo saareen ayaa wuxuu noqday war naxdin ku abuuray Yahuudi kadib markii la sheegay afar kamid ah saraakiishii ciidanka hogaaminaysay in lagu laqay Gaza lagu laqay. sheeko la yaab leh ayaa halkaa ka dhacda la leeyahay. haddaba aan idin tuso telefishinka Al Jazeera ayaa caawa qoray ciidanka Israa'iil waxay sheegeen in la dilay afar kamid ah saraakiishooda Rafah ayaa lagu dilay. ciidamada Israa'iil waxay sheegeen afar kamid ah saraakiishooda oo mid kamid ah waliba darajadiisu ay tahay gaashaanle ayaa waxaa la sheegay in markaa la dilay oo marinka Gaza lagu dilay, iyadoo soo kalena qaar kale la sheegay inay iyaguna weerarka ku dhaawacmeen. haddaba arrintan ayaa la sheegay inay militariga Israa'iil ay ka hadleen kadib markii la sheegay deegaanka la yiraahdo Hayu Janiina oo ku yaala bariga Rafah ay markaa arintaasu ay ka dhacday oo weerarka lagu dilay saraakiisha ay markaa halkaa u ka dhacay. saraakiishii ayaa la cunay arbaca kuwii kale askartii la socotay saraakiisha waardiyeynaysa iyo wixii laba sheegin iyagu markaa xisaabta kuma jiraana lagu leeyahay oo lama hayo. haddaba marka qaybtaasu marka waa wararkii ugu dambeeyay. haddaba warka kale ee cusub ee soo kordhay ee ku saabsan Gaza iyaduna wuxuu yahay nimankii Al-Qassam ahaa ayaa war soo saaray iyaguna caaw ay leeyihiin maxaabiista aynu hayno hadday dhintaan iyo hadday dhaawacmaan anagu shaqo kuma lihi. cidda go'aansatay inay weerar cagtaan marinaynaa Gaza tiri waa Netanyahu iyo kooxdiisa, iyagaasaa loo haystaa yidhaahdeen. annagu nimankan inta aan ilaalin karno waa ilaalinay, laakiin xaaladdu hadday xumaato ogaada halala socda yidhaahdeen. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay, Al-Qassam ayaa war soo saartay waxayna wacad ku martay in gumaysigu isagu uu u diyaarinayo ciidamadiisa inay markaasi Al-Qassam waxay sheegeen inay diyaariyeen oo ciidamadoodu ay u diyaarsadeen qayb ka tirsan istishhaadiyiin kuwa la yiraahdo oo macnaha iyagu diyaar u ah inay isdilaan oo ay dhintaan, iyo sidoo kale kumanaan jidgooyooyin inay u diyaarsan yihiin oo ay dhigteen. haddaba hoggaanka Al-Qassam ayaa waxaa la sheegay inay soo dhigeen bartooda ay ku leeyihiin Telegramka in Al-Qassam ay diyaarisay ciidamo gaar ah oo kuwa istishhaadiyiinta la yiraahdaa oo macnaha u diyaarsan inay naftooda huraan oo ay isdilaan. waxay soo kale sheegeen inay diyaarsadeen kumanaan jidgooyooyin, miinooyin, walxaha qarxa
kulli ay diyaar u yihiin inay iska caabiyaan weerarka la sheegay in magaalada lagu soo qaadayo. haddaba xoogagga al-Qassam ayaa waxay sheegeen dhanka kale in iyagu aanay wax shaqaa ku lahayn dhibaato haddii la gaarsiiyo dadka ay hayaan oo ay wax ku noqdaan dagaalkan ay Israa'iiliyiintu soo qaadayaan. waxay leeyihiin marka al-Qassam warka ay soo saareen waa war cabsi gelin ah waaye. miidiyaha waa lagu dagaalamaa ogaada, waa waxa ugu weyn ee lagu dagaalamo. Israa'iil marka fariina loo dirayaa waxaa leeyahay dhageysta, waxaan samaysanay qayb dhan oo leeyahay istishaadiyiin, niman isqarxinaya kaliya, kumanaan alaab oo jidgooyooyinka iyo walxaha qarxaan waan idin haynaa, soo socda maalinkaa soo gashaan waan idin dumanaynaa la leeyahay. miidiyaha la isu marinayaa. kuwaan laftirkooda maalmihii hore maxay lahaayeen? ka guura meesha, cagtaa marinaynaa, dadka ha qaxaynay lahaayeen. kuwaana markooda iyaguna miidiyaha marka wuxuu ka mid yahay dagaalka ugu culus ee lagu dagaalamayo ka mid yahay miidiyaha. marka Gaza xaalkeedu waa saas. caawa xaaladdu intaasay maraysaa, wax cusub oo dheeraada male. 4 sarkaal oo la dubtay maanta oo halkaa lagu qaramsaday iyo qaar ku dhaawacmay ayaa markaa warkaas ka cusub. sheeko kaloo cajiiba iyaduna dhacday maqribkii. waxaa leeyahay 2 diyaaradood ayaa waxay ka yimaadeen Yaman. 2 diyaaradood say u soo socdeen hawadii Israa'iil iyo meelaha kulli way soo galeen. meel la yiraahdo Eilat hotel ku yaala ayaa bartilmaameedkoodu ahaa. inkastoo la qarinayo la leeyahay hotelka rag waaweyn ku shirsanaa, haddana waxaa leeyahay weli tafaasiil lagama hayo. laakiin ciidamada Israa'iil waxay qirayaan diyaaraddu inay hotelka gashay oo ay ku dhacday. khasaare badanna markaa halkaa uu ka dhashay. qolyaha gurbadka ay tageen, meesha holac ka kacay, dab ka kacay, dhibaatadaasaa dhacday. way qirsan yihiin diyaaraddu inay soo baxsatay hotelka oo bartilmaameedka aadan ku dhacday. diyaaradii kale labaad waxay leeyihiin waa ka hortagnay. marka 2 ahaayeen isla socda, midaan ka hortagnay, midda kale halkaasay ku dhacday. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray. diyaarad ayaa waxay ku dhacday daroon ah hotel ku yaala Eilat. ciidamada gumaystaha Israa'iil ayaa waxay sheegeen midda kale oo diyaarad kale ah oo labaad inay ka hortageen. haddaba warbixintu way sii socotay. warbaahinta Israa'iil ayaa caawa sheegaysa diyaarad daroon ah in markaa ay ku dhacday oo lala helay hotel si toos ah ay ugu dhacday ku yaala Eilat dhinaca koonfureed ee Israa'iil. haddaba idaacadda ciidamada Israa'iil ayaa waxay leeyihiin ciidanka cirka waxay sidoo kale ka hortageen diyaarad labaad iyo gantaal. xootigu caadi maaha. waxaa sidoo kale la sheegay siiriga digniintu inuu isqabsaday deegaankaas oo dhan oo markaa dadku ay kala carar bilaabeen. ciidamada Israa'iil waxa ay dib u dhigeen hadalkii uu waday afhayeenka ciidanka oo ka hadlayay dhacdooyinkii ugu dambeysay. waxay leeyihiin hal diyaarad iyo hal gantaal ka hortagay, diyaarad kale waa xarootay meeshay ku dhacday. afhayeenkii oo shir jaraa'id qabanaya, shirkii jaraa'id waa la joojiyey, waa la kala cararay. nimanka xootigaa niman caadi maaha. gantaal ha dhihin, diyaarad ha dhihin. nimanka hurdaday u diideen. galabkii maqnaanayaan, subaxii imaanayaan, subaxii maqnaanayaan, habeenkii imaanayaan. waqti kasta way dul taageen. adi soo weerar maanta dhan garaac, waxaa rabta ku sameey aday ku taalaa. sheekadaas iyaduna halkaasay maraysaa. haddaba qaybaha ugu dambeeya barnaamijka ayaynu u gudbi doonaa. waxaynu ku soo qaadanaynaa ninka la yiraahdo Erdogan ayaa la kulmay madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Mahmoud Abbas. wuxuu u ballan qaaday Erdogan oo u socda shirka UN-ka ee qaramada midoobay inuu dardar gelin doono aqoonsiga dowladda Falastiin. ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada? markaas Daaru Taqwa waxa kugu baraya qur-aanka hab casri ah online ah. maadooyinka aad ka baran karto waxaa kamid ah qur-aanka kariimka, hikaada, luqada carabiga iyo culumta shareecada. isdiiwaangelintu way socotaa. fadlan hore u gaadh. waxay faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. hamogaadi dugsiga markaas Daaru Taqwa. sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaano The View xaafadda Parklands jidka 6 Avenue City Park. dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah, waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol, 3 qol, 4 qol iyo weliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran. waa nooca loo yaqaano duplex. haddaba iminka waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional, kaasoo la magac baxay hoygu waa muhiime hanti yeelo. kala xidhiir telefoonada kulanti wanaagsan markale asxaabay meel kastoo aad joogtaan. waxaynu maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeennii habeenimo. waa habeenimo khamiisa jimca soo galayso. qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka waxaynu kusoo qaadanaynaa qodobka muhiimka ah ee ah kulanka dhex maray Erdogan iyo madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Mahmoud Abbas. haddaba sida lagu ballansan yahay kulanka loo dhan yahay qaramada midoobay oo maalmaha soo socda ka furmi doona xarunta qaramada midoobay New York, arinta xoogga lagu saari doono waa dardargelinta sidii loo aqoonsan lahaa Falastiin. Erdogan wuxuu u ballan qaaday Falastiin awsheeda inuu qayb weyn ka gali doono, iyadoo shir ay wada hogaaminayaan Faransiiska iyo Sacuudiga hawsha lagu dardargelin doono. dowlado badanna ay markaa iyagu ballan qaadeen inay aqoonsiga sameyn doonaan. haddaba wararkii ugu dambeeyay sheekadan laga qoray Al Jazeera waxay leedahay Erdogan wuxuu la kulmay Abbas, wuxuuna sheegay in uu sii wadi doono taageerada Falastiin ee qaramada midoobay. haddaba madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa la kulmay dhigiisa Falastiin Mahmoud Abbas, waxaana uu sheegay in ay markaa ka shaqayn doonaan sidii loo sii wadi lahaa arinta ku saabsan aqoonsiga dowlad Falastiin oo markaa Erdogan uu xoogga saari doono. dhanka kale hogaamiyayaal dhowr ah ayaa ballan qaaday inay hawsha iyaguna ka shaqayn doonaan, waxaana ay dad hogaamiyaashaas u cambaareeyeen tallaabooyinka Israa'iil ay qaadayso ee ku saabsan dhibaataynta dadka Falastiiniyiinta ah. waa tahay marka shirka isaguna kullay wixii ka soo baxa waa arki doonaa. barnaamijkayga caawana akhyaaray waa naga intaa. like gareeya oo share gareeya barnaamijka haddii aad nagala socotaan. facebookga isaguna follow gareeya. inta aan mar kale kulmayno asxaabay, nabadgelyo.